dadaal dheer kadib, maamulka kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa u mahadcelinaya ciyaartoydooda oo markii saddexaad uu xiriir ku guuleystay tartanka horyaalka Somali Premier League. Gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Dekedda, Cabdulaahi Faarax ayaa u mahadceliyay xiddigaha kooxdiisa sida wanaagsan ay ugu dhabar adeegeen hamigooda hanashada horyaalka, wuxuuna bogaadiyay ciyaartoyda ajaanibta oo iyagana kaalin wanaagsan ka qaatay guulaha kooxda ay sameysay. waxaan kala u hambalyeynaa ragga walaaleenna marna ilmeena idinkana saaxiibadiina ee ajnabiga ee wadanka loo joogay waqtiga dheer ka maqnaay guryahooda waa u mahadcelinaynaa sabarka ay nala sabreen muddadaas dheer annagana waa inaan u mahadcelinaa ka maamul ahaan iyo macallimiin ciyaartooy ahaan idinka waa inaan mahadcelisiin. xogayaha kooxda Dekedda Cabdulaahi Bashiir Kuwatro ayaa qeexay maalintii ay heleen macallin Yuu Cali ay ka baxeen baahida dhinaca hanashada koobabka, iminkana ay kooxda ku guuleysan doonto tartamada kale ee ku soo wajahan. war wax ma taro waaye Yuu Cali waa nin u diyaarsan diiniya u diyaarsan waaye waa nin meesha lagu ogyahay lagu soo gaari karo marka war wax ma taro qofka shaqada ay qabatana waa ka mira dhalisaa. marka Yuu Cali maalintii la keenayay meeshaan waxay ahayd 2016 bishii Oktoobar 17 aniga maalintaas sheegay guddiga xataa weydii kartaa aniga shaqadayda ka tagay horyal la waayay. Tababaraha kooxda kubadda cagta Dekedda Yuusuf Canur Yuu Cali ayaa ciyaartoydiisa kaga mahadceliyay taariikhda ay sameeyeen, iminkana laga rabo in aysan isdhiganin oo ay difaacdaan koobabka ay ku soo kordhiyeen xafiiska naadiga Dekedaha Football Club. waxaan idin leeyahay hambali aan ku raaxaysano guusha aan gaarnay mar kalena waxaan leeyahay shaqo hadda ay diyaar noo tahay waayo 3 horyaal xiriir aan ku guuleysanay ma aha inaan seexano dadaalka hadda inaan sii badino howl ayaa hadda noo taala inaan difaacano horyaalnimadeena. marka waa mahadsantiin sida wanaagsan shaqadiin u gudateen waajibkiina u gudateen runtii taariikhda ayaan idin xusaysa waxaa tihiin kooxdii saddexaad ee Soomaaliyeed ee sameysay inay ku guuleysato 3 sano oo xiriir ah. horseed oo sameysay 70meeyadii, Elman oo sameysay 2000 iyo ilaa 2003 haddana waxaa tihiin kooxdii markii saddexaad recordkaas dhigtay iyagana jabisay. marka hambalyaa idin leeyahay. Cabdulaahi Siyaad Maxamuud oo ka mid ah maamulka kooxda Dekedda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guulaha lama iloobaanka ay naadiga ka gaartay tartanka horyaalka Somali Premier League, si wada jirna oo ugu mahadcelinayo qof walba oo ka qayb qaatay safarkii dheeraa ay kooxda u gashay 3 jeer oo xiriir inay ku guuleystaan koobabka dalka. aniga waa kaga duwanahay dadka kale waayo aniga waxaan ahaa macallin soo leyliyay gudoomiyaha kooxda Cabdulaahi Faarax, macallinka kooxda Yuu Cali Maxamuud oo macallinka kooxda labaad iyo Calawi intaba macallinkooda ahaa aniga. marka waa iga duwan tahay mataqaan dad kale waa ka duwanahay waxaan uga duwanahay anoo aad يعني مجاعي حتى وحنقنا مجاع صار ما دام أنت معنا معلم وصاحنك هذا تاريخ الصومالي ولي كمان دحين كوح 6 سنة اسكت كقولة ستوريال كودن الصومالي بركدب ما كدحين مركب وكوح وهرسي ما يسمع على قرنا إن أيهين كوحدن عيارتوي معلمين إمام الكل وذ سبورتس. عباس أمين محمد كابتن كوح Dekedda كنا هذلي مجاع عيارتوي ده ayaa sheegay in guushan aysan imaan lahayn haddii si wada jir ay isku kaashan lahayn maamulka ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda. waxaan aad ugu faraxsanahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inaan koobkan saddexaad aan ku guuleysanay. waxaan aad ugu hambalyeynaa maamulka naadiga, ciyaartoyda iyo taageerayaasha naadiga meel walba joogaan. kooxdan si fiican loo abuuray, waxaa la iskugu daray dhaqaale, waxaa la iskugu daray aqoon, waxaa la iskugu daray rabitaan badan oo ka yimid macallimiinta iyo maamulka ka yimid ayaa taas ayaa keentay in uu kooxdan 3 sano ay koobka ku guuleysatay.